maamulka militariga ee magaalada Kiev ayaa sheegay in Ruushku dhowr mawjadood oo weerar drone ah ku qaaday magaalada aroornimadii hore ee Axadda habeenkii labaad oo xiriir ah taasoo sare u qaaday weerarada ay ku qaadayso caasimadda Ukraine kadib markii ay hakad ku jireen dhowr toddobaad halka madaxweynaha Ukraine ku dhawaaqay talaabooyin cusub oo lagu sugayo ammaanka dalkiisa. madaxa maamulka militariga ee Kiev Serhiy Bobko ayaa yidhi iyada oo loo marayo codsigan in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee cadowgu lagu soo bandhigayo kooxo badan oo Kiev ku weeraray mawjado ka yimid jihooyin kala duwan isla mar ahaantaana ay si joogto ah u bedelayaan socodkooda. sababtaas awgeedna dhowr jeer ayaa looga digay weeraro dhanka cirka ah. dhanka kale madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku dhawaaqay talaabooyin cusub oo lagu sugayo ammaanka dalkiisa gaar ahaan xoojinta difaaca hawada Ukraine toddobaadyada soo socda. difaaca hawadu waxa uu noqon doonaa mid ka mid ah mid aad muhiim u ah qorshayaasha difaaca ee Kiev marka uu jiraalku soo dhawaado. Kiev waxa ay rajeynaysaa in Moscow ay weeraro badan ku qaado korontada, kuleelka iyo saadka biyaha Ukraine ee jiraalkan. difaaca hawada waxa uu noqon doonaa mid aad muhiim ugu ah qorshaha difaaca ee Kiev marka uu jiraalku soo dhawaado. Kiev waxa ay rajeynaysaa in Moscow ay weeraro badan ku qaado korontada, kuleelka iyo saadka biyaha Ukraine ee jiraalkan. ciidanka Ukrainianka ayaa sheegay in kaabayaasha tamarta ee gobolada Zaporozhye iyo Odessa koonfurta Ukraine ayaa la kulmeen weeraro xooggan oo ay geysteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka. weli waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka raadka dhacdooyinka iminka Falastiin. isku dhaca u dhaxeeya kooxaha wax iska caabinta iyo ciidamada gumaysiga ee isku dayaya inay gudaha u galaan marinka Gaza ayaa ku fiday masaafo dhan 25 ilaa 30 kiiloomitir ku dhawaad 3 saacadood taasoo la macno ah in horumarka Israa'iil uu weli ku jiro mitir kadib 16 maalmood oo weeraro dhulka ah oo isdaba joog ah sida uu qaba khabiirka militariga Major General Fiyaz al-Duwayri kadib markii ay ku guuldareysteen inay ka gudbaan xanibaadda 1800 mitir ee waqooyiga marinka Gaza. laba toddobaad ciidamada Israa'iil waxay bilaabeen inay u dhaqaaqaan meelo badan oo nugul sida xaafadda Al-Zaytun iyo Jabaliya. dhinaca kale wargeyska Washington Post oo soo xiganaya mas'uuliyiin ka tirsan Israa'iil ayaa sheegay in Tel Aviv ay rajeynayso in weerarka dhulka ee marinka Gaza uu sii socon doono muddo 3 bilood ah. waxayna arintani ku macneeyeen in sii socoshada muddo dheer ay horseedi doonto burbur ku yimaado dhaqaalaha Israa'iil marka loo eego tirada badan ee ciidamada kaydka ah ee lagu yeeray inay ka qayb qaataan dagaalka jidadka ama dagaalka infantryga. ilaha warbaahinta ayaa intaa ku daraya in Israa'iil aysan weli lahayn aragti cod oo ku saabsan maalinta xigta ee Gaza. wargeysku wuxuu intaas ku daray isaga oo soo xiganaya saraakiisha Israa'iil in badi taliyayaasha sare ay filayaan in la dhimo tirada ciidamada oo ay la baxaan bil ama 2 bilood gudahooda. sida uu qoray wargeyska Washington Post madaxda Israa'iil ayaa aaminsan in dagaalka Gaza uu galay marxalad cusub oo u baahan in la dhimo ciidamada Israa'iil ee ku sugan marinka sidoo kalena la dhimo howlgallada duqeymaha taasoo hoos u dhigaysa tirada dhimashada Falastiiniyiinta. Israa'iil ayaa u yeertay tiro askar ah oo kayd ah 300,000 oo askari taasoo qayb ka ahaa abaabulka dagaalka ay ku hayso marinka Gaza si ay ugu jawaabto howlgalka dagaalka Al-Aqsa oo ay bilaabeen dhaqdhaqaaqa iska caabinta Islaamiga ee Hamas.